shaqaalaha kala duwan ee wasaaradda qorshaynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ay hogaaminayaan qaar ka mid ah madaxda wasaaraddaasi ayaa sidii qorshuhu ahaa ee lagu ballamay waxa ay maanta si mug weyn uga dhex muuqdeen meertada 12aad ee ololaha isxilqaan dalkaaga ku dhiso oo ah barnaamij baaxad weyn oo mar kale dhidibada loogu taagayo hantida qaranka iyo goobaha danta guud agaasimaha waaxda shaqada ee wasaaradda qorshaynta liibaan cabdi maxamed waxa warbaahinta qaranka u sheegay inay diyaar u yihiin gudashada waajibaadka ka saaran qaranka iyagoo maanta shaqo la mahadiyay ka qabtay xarunta golaha murtida iyo madadaalada ama tiyaatarka qaranka ee Muqdisho oo ku jira marxaladii nadaafadda iyo diyaarinta bacdama dhawaan daaha laga rogi doono waxaan ku soo kordhinay inaan shaqadii saaka noo diray inaan si fiican oo hufnaan leh aan u gudanay dhammaan shaqaalaheennuna ay u soo diyaar garoobeen diyaaran aan u nahay meel kasta oo qaranka Soomaaliyeed oo ku burburay inaan dhisno heegana aan ugu jirno inaan si hufsan u gudano waajibaadka noo egmaday oo shaqada qaranka ah ololahan isxilqaan dalkaaga ku dhiso waxyaalaha horseeday inuu guuleysto waxaa ka mid ah korjoogteynta iyo la socoshada madaxda qaranku ay la socdaan qaabka uu ololahani u soconayo ama u shaqeynayo waxaana arrintaas tusaale inoogu filan kulankii madaxweynaha qaranku uu dhowaan la yeeshay mutadawiciinta sida gaarka uga howlan socodsiinta ololaha isxilqaan isagoo uga mahad celiyay shaqada ay qabteen kuna booriyay inay halkaas ka sii wadaan maxamed faarax laagare oo ah madaxa qaybta xiriirka midowga Yurub ee wasaaradda qorshaynta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa cadeeyay inay diyaar u yihiin fulinta awaamirta madaxda qaranka ee salka ku haya ka qaybgalka ololaha isxilqaan dal walba bilicdiisa dadkiisa soo saara waxaan ugu mahad celinayaa madaxda qaranka oo noo horseeday nagu hagaajisay hogaaminta toosan ee togan maaragtay u horseedaysa horumarinta in shaqaalaha rayidku ay yihiin awoodda adeegyada halbowlaha u ah bulshada Soomaaliyeed ka qaybgalka wasaaradda qorshaynta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ay maanta ka qayb gashay wareegii 12aad ee ololaha isxilqaan waxa isaguna tusaale u yahay sida ay wasaaraddu ugu heelan tahay socodsiinta iyo fulinta awaamirta madaxda qaranka Zakariya Khalifa warbaahinta qaranka Muqdisho.